Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada. Waxaan rabaa horta ciid wanaagsan. Kula caam wa antum bikheer. Ina fiicantihiin aan rajeyna. Waxaan isugu kayn dambeysay waxa la yiraahdo list view ayaan isugu kayn dambeysay. Waxaan noo balansanaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan u gudubno concept muhiim oo la yiraahdo recycle review. Waan noo balansanaa. So recycle review waa list view oo la hormariyay waay. So inaga markaan rabno inaan application real world sameyno waxaan isticmaali doonaa recycle review. So waxaan ku qasbanahay inaan recycle review-ga barano waxa uu list view ugu duwan yahay ogaano. Sidoo kale ma rabo recycle review kaliya inaan barano maanta cashirkaan ku barano. Runtii waa cashir heavyweight ah. La rabo waqti badan in la geliyo, la rabo in la fahmo. Waxaan isku dayi doonaa inta karaankayga inaan sharaxaad fiican oo macquul ah geliyo. So recycle review waxaan baranaa waxa kamid ah recycle review, card view aan rabno inaan aragno. Recycle review waa updated version oo list view ah kaasoo la rabo in lagu soo bandhigo ama loogu talagalay in list lagu soo bandhigo marka la joogo Android application-ka. Sharaxaadiisa ugu gudagalaynaa. Card view-na waa cards-ka caadiga ah taqiineen markii bootstrap joogteen oo card aan dhihi jirnay kaasoo background cadaan lahaay, maxaa la yiraahdaa shadow lahaay. Card-kii waa naftirkiisa oo rabno inaan isticmaalno. Rabno inaan aragno maadaama aan rabno inaan isticmaalno. Waxyaabaha kale oo aan rabno inaan barano waxa kamid ah volley. Volley waa library kaasoo noo suurtagelinayo internetka inaan data ka doono basically intaas waay. HTTP request inuu noo sameeyo internetkan data ka doono. Waxaan sheegnay inaga inaan sameysan doono own API aan ku dhisanayno PHP MySQL. So own API-gaas waa own. Markii PHP ku sameysay project that means project online waay. Markii la rabo marka xogtaas API-ga ku dhisan in la doono waxaan u baahanaa marka Android la joogo inaan u marno maxaa la yiraahdaa libraries HTTP request sameynayo online ka doonayo. So mid ugu caansan waxaa kamid ah volley-ga anaga isticmaalayna iyo retrofit mid la yiraahdo asigana la isticmaalo. Marka adinka hadda ka heshaan kaas oo research ku sameysaan waa isticmaali kartaan. Anaga laakiin kana iska isticmaalaynaa oo inoo fudud hadduu Ilaahay yiraahdo. Functionalities ka aan u baahnayna leh aadna simple ah. Sidoo kale isticmaali doonaa another library la yiraahdo Grid kaasoo shaqadiisu tahay inuu soo load gareeyo imageska. Image URL ka soo load gareeyo kadibna ku soo bandhigo screen-ka. So concept muhiim ah waay. Application real world waay. Waxaan rabnaa inaan isticmaalno real API. Nimankaan la yiraahdo Dummy Chainson API sameeyaan rabnaa inaan ka faa'iideysano. Waxa waaye waa free fake REST API for placeholder JSON data. Yani waa free fake waay. Waa API static ah oo meel ku diyaarsan oo isbedbedelaynin oo aad soo akhrisanaysid. So haddaa tan fahantid sida loo soo akhriyo just hadhowt marka you own API dhisato simple waa si tan loo soo akhrinayo taas adiga aad dhisatana u soo akhrisan doontaa. Marka tan si loo soo akhriyo marka waxyaabo badan ay leeyihiin. Markii hore aniga waxaan iska isticmaali jiray kuwa JSON placeholder lahaa. Just markii PHP ga baranaynin waxaan u maleynayaa inaan tusay kuwan iska isticmaali jiray. Kuwan marka xoogaa kuwan kala ka hormarsan kuwan posts-ka, comments-ka, albums-ka, photos waxaas ayagana leeyihiin. Xoogaa kuwan isleeyahay hadda way kasii professionalsan yihiin. Marka waxay leeyihiin products oo anaga hadda products-kan rabnaa inaan soo akhrino. Mar
waxaa ii geysaa browserkan kale ii geey. Okay, browserkan wax kale ma karabe, waxaa iigu jiro extension oo la yiraahdo JSON formatter oo JSON-ka qaabkan quruxda badan ka dhigayo. Kan kale haddaad fiirisiin saan iskugu dhex daadsan yahay macnaha. Kan qaabkan uu format gareynayo objective ugu horeeyay, objectigan oo array ah. Qaabkan haddaad rabtid kusoo darso extension waaye. JSON waxaa kusoo darsan intee maana ka leedahay JSON formatter. Think waa kanaa ku darsaneen add chrome leedahay. Ani hadduu igu jiraa marka wuxuu leeyahay remove, markaas kusoo darsanee then markii oo wax JSON aad soo kicisid ama xog objective saan kugu soo noqon doona. Marka waa maxaa la yiraahdaa object caadi xog JSON caadi ah noo soo laabto objectiisa. Marka xogtan JSON-ka waxaan rabnaa inaan soo akhrino marka. So halkan haddaad fiirisiin leeyahay thumbnail image. Thumbnailka kale haddaad ku dhufatid productiga imagekiisa soo muuqanaya. You see productiga imagekiisa. Marka muxuu leeyahay waxyaabo badan uu leeyahay. Hadda intaan waa hal product. Inta ka bilow ilaa intaas one product waay. Ujeedadu waa hal product oo database-ka laga soo akhriyay oo maxaa la yiraahdaa wax kasta u dhameystiran. Rating-kay leeyihiin product rating-ka, discount percentage-ka la samayn karo, productigan price-kiisa, category-ga uu ka tirsan yahay, description-ka, title-ka, product ID-ga, stock-ga, maxaa la yiraahdaa I think bakhaarka inay tahay rajayna, tags-ka, brandiga, weight-ka, dimensions-ka, width-ka iyo height-ka ay leedahay product intuu leeyahay. Yacni wax kasta oo productigan warranty-ga 1 month warranty, shipping 1 month hal bil kugu soo gaaraa, low stock waaye. Yacni wax kasta oo productigaas la xiriira ayaa meeshan ku jira. Waxaan oo dhan midka u baahatid waa soo akhrisan kartaa. Muhiimadana waxaa waaye sida loo soo akhriyo oo screen loogu soo bandhigina fahanteed. Just intaas laga rabaa. Soo sharaxaad ku dheeraada. Waxaan rabaa okay, so angala marka recycle view waxaan rabaa sharaxaada inaan laga boodin qof walba oo uu fahmo then uu gudbo markaas practical. Recycle view waa improved version of list view. List view oo la hormariyay waa taasoo loogu talagalay in lagu soo bandhigo large sets of data waaweyn. Marka xog aad u culus oo badan aad rabtid inaad soo bandhigtid waa recycle view isticmaasha. Waana efficiently by scrolling view. Marka la scroll gareynayana waa mid efficient ah oo inta badan waxyaaba culayska ka mid ah ama list view oo kale culayskiisa waxaa ka mid ah data tiro badan markaa ku soo bandhigtid marka scroll sameynayso saas oo scroll gareynaysa inuu aad culays u noqdo. Marka recycle view-ga scrollingkiisa waa mid simple ah waxyaaba badan aan keenayo oo qaybo badan ka mid ah arkeen. So by recycling view that are no longer visible to the screen wuxuuna suurtageliyaa in la recycle gareeyo oo maxaa la yiraahdaa xogta scrollka marna banaanka xogta loo saaro kor loo bixiyo dibna loo soo recycle gareeyo dib loo soo isticmaali karo. Kor u wad hoos u wad yani fasano kale dib recycle macnihiisu waxa weeyaan wixii hadda page-ka koro kale kor aan geeyni hada soo celino waa soo recycle gareyn dib soo celino. Waa mid highly customizable oo waxyaabo badan aad ka bedeli kartid macnaha saarabta aad u dhigi kartid. Flexible waa ayadan wuxuu ku siinaa flexibility
qaabka wax usoo bandhigaysid flexibility badan ku waana arkaynaa flexibility meesha ka imaan sidoo kale marka waa powerful tool kaasoo loogu talagalay in lagu soo bandhigo list in Android application marka I think recycle review in la fahmo waa improved version oo list review-ga kaasoo loogu talagalay data badan in lagu soo bandhigo sidoo kale scrollingkiisuna waa mid efficient ah shaashada in listiga in la scroll gareeyo kor loo scroll gareeyo dibna loo soconi karo ayuu wuxuu ku yahay efficient mid wax badan kuu suurtagelina okay how recycle review work marka recycle review soo shaqeeya muxuu soo kordhiyay macnaha list review waa naqiinay muxuu ku soo kordhiyay recycle review wuxuu suurtageliyaa waxa la yiraahdo performance inuu performance-ga recycling-ka ama scrolling inuu performance yeesho oo datada ay si simple ama smooth loo scroll gareeyo wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo view holder pattern oo shaqadiisu tahay inuu reduce gareeyo ama yareeyo number of calls to find viewed by ID inta mar la wacayo itemka waxa saaran markii la joogo list view waxaan soo barnaa kamid ah in la sameeyo item list itemkaas listiga marka noo saaran karta view image maxaa la yiraahdaa input waxyaaba noo saaran karo marka edit text iyo wixii lamid ah noo saaran karo marka xogtaas mar walbo oo item cusub lagu soo bandhigayo shaashada in loo waco text view image view waxay keenayaan culays badan marka view holder wuxuu yareeyaa in wicitaankaas tirada badan oo find viewed by ID la dhahayo wuxuuna suurtageliyaa in la abuuro number of views kaasoo loo baahan yahay keliya shaashada in lagu soo bandhigo inta shaashada kasoo muuqanayso unbaa loo wici doonaa find viewed by ID dhihi doonaa danna mar dambe find viewed lama dhihi doono oo maxaa la yiraahdaa referenceskaas ama ID-yadaas ay leeyihiin wixii screen-ka saarnaa la soo load gareeyay ayaa dib loo isticmaali doonaa marka item cusub la daabacayo waa la hayaa reference-ga xogti waa la hayaa oo design-ka saarneed kuwaas dib loo isticmaali doonaa soo marka taasoo suurtagelinayso scrolling inuu noqdo mid smooth ah marka in la fahmo rajada meeshaas haddaan sii soconno muhiimadana waxaa waaye performance-ga oo scrolling inuu high ahaado just intaasaa muhiim iyo loading-ka datada markii la keenayo okay recycle review recycling mechanism recycling waa macnaheedu waxaa waaye scrolling waaye haddii si kale aan u dhahay in dib loo restore gareeyo ama scrolling in up iyo down la sameyn karo markii userku uu scroll gareeyo listiga maxaa dhacayo user markuu list scroll ku sameeyo maxaa dhacayo on screen item are displayed using a fixed number of view holder object screen-ka waxaa lagu soo bandhigayaa fixed number oo inta shaashada uu la eg yahay oo kaasoo objectiska laga soo qaadayo view holderka wuxuu noo hayaa itemka lasoo bandhigayo oo item maxaa la yiraahdaa design-ka waxa saaran hal mar la soo qabana find viewed by ID lasoo dhahaa danna mar dambe looma laabana xog fixadahaana hal mar lasoo find viewed ID gareena then waa lagu soo bandhiga hadhood haddii lasoo baahdo in xog kale la daabaco mar dambe find viewed lama dhahayo oo itemka dib loo soo load gareeyo meesha uu ka baxa when scrolling down markii scroll la sameeyo item is going off screen itemka waxay ka bixi doonaan shaashada marka hadaasoo kale marka uu scroll u sameeyo itemka resolve gareeyay wuxuu ka bixi doonaa shaashada screen-ka ayuu ka bixi doonaa waxaana dib loo isticmaali doonaa new data xog cusubaana yani shaashada kusoo biiri doonta maadaama kuwa hore banaanka loo saaray taasoo bottomka kasoo geli doonta hoos kasoo geli doonta xogta cusub hoosay kasoo geli macnaha marka la scroll gareeyo hadda xogta cusub hoos inaga soo geli doonta asina sidaas oo kale recycle review binds new data to this recycled view instead of creating new one improving performance recycle view wuxuu bind gareeyaa ama kusoo bandhigaa ama ku daabacaa new datada cusub to the recycled view
maxaa la viewgii hore oo la recycle gareeyey oo la score gareeyey oo banaanka shaashada looga saaray ayuu wuxuu kusoo bandhigaa daatada cusub oo ah view cusub lama abuurayo. Markii aan koodka tagno aan sharaxaadaas ayadana ku dari doonaa si ila fahantaan. xogtii scrolling lagu sameeyey ee la scroll gareeyey ee kor aaday maxaa la yiraahdayey viewskii la scroll gareeyey ayaa dib loo isticmaali doonaa. maana view cusub lama abuurin doono. mar walba waxaa kusoo baxaya design cusub, imagekii iyo wixii lagu daabacay ayaa kusoo baxay, laakiin view cusub lama abuurine viewgii hore la haystay referencegiisi lagu daabacaa daatada cusub lagu daabacaa. muhiimadana waxaa waaye improve performance-ga inuu high noqdo muhiimada. componentska keyga u ah oo muhiimka u ah marka la joogo recycle view waxyaabaha aan u baahanahay waxaa kamid ah waxa la yiraahdo recycle view adapter. meeshaan marka list view la joogo wixii aan samayn jirin uma samaynayna. adapter aan samaysan jirnay soo marka la joogo recycle view waa isla adapterkii. marka adapterkii aan samaysana adapterku shaqadiisa waxaa tahay inuu bandis ku sameeyo ama kusoo bandhigo daatada viewga inuu kusoo bandhigo. view holder si wuxuu ahaan doonaa referencega viewga si loo improvement loogu sameeyo. marka kan ugu soo biiri doono iyo kan labadan ugu soo biiri doono marka la joogo referencega noo hayn doonaa improvement. layout managerka marka layout managerka waxyaabaha recycle view ka dhigayo waxaa waaye layout managerka oo ah in la qeexo how items are arranged, daatada see loo arrange gareyna. wuxuuna siinayaa 3 shay oo muhiim. wax midkood waxaa la linear. linearku waxaa waaye waa layout linearki aan maxaa la yiraahdaa soo baranay oo kale oo waa layout linearka shaqadiisu maxay ahayd in xogta oo u soo bandhigo ama horizontally ama vertically. wuxuu lahaa jiray waxa la yiraahdo orientation. linear layout wuxuu lahaan jiray orientation vertical ama horizontal. kana sidoo kale ama xogtaada waxaa tirahdaa vertical ahaan igu soo bandhig ama horizontal ahaan. list view laakiin muxuu awoodi jiray kaliya hal shay. maxay ahayd waxaas? just inuu u soo bandhigo xogta qaab oo vertical. horizontally ma awoodin. vertically kugu soo bandhigo xog soo taalo oo disti, laakiin xog iska rabtaa lama awoodin inuu soo bandhigo. laakiin kan wuu awoodaa labadaba. sidoo kale muxuu awoodaa xog grid ah. gridka maxaa waaye inaad dhihi karto xogteyda laba column usoo bandhig, labo ama 3 ama 4 ama 5 ama 10 inta adiga ka rabtid usoo bandhig ay dhihi kartaa. gridka waa arkayna waxaa kaloo jira waxa la yiraahdo stickered grid. stickered gridka maxaa waaye xogta grid ahaan usoo bandhig 2 ama 3 qaar usoo bandhig, laakiin size-skeeda ha kala duwanaadaan. ma garad yani size-ka oo kale waxaa tusaale oo kale haddaan fiirino qolyahan oo image soo bandhigo unsplash oo kale qolyahan unsplash la yiraahdo kale hadaa fiiriso meeshaan fiiri imageskan isku size miya fiiri kan iyo labadan isku size miya kan iyo kan isku size miya may. waxaana loo yaqaanaa stickered grid in xogti la dhaho 3 column kasoo dhig. halka kan kale si fiican fiirsana 3 column waa 3 column laakiin 3 column oo siman ma aha. mid walba size-kiisa image walba size-kiisa lagu soo bandhigaa. tusaale kale haddaan fiirino qolyaha kala sawirada soo bandhiga maxaa kamid ah pixelsk oo kale pixels.com oo kale hadaa tagno waa ujeedaa ayagana 3 line oo kale kusoo bandhigaa, laakiin ma sin xogtaan wax siman ma aha. you see so xog siman ma aha. gridka kale haddaan fiirino grid list gridka ku jirto grid list imageska ama gridka waa kana marka argali grid waa kana maxaa jeedaa 3 waa 1 2 3 4 yani leen walba 3
column ha lagu soo bandhiga hadda halkan kala fiiri 4 waaye soo ma jeed waxaasaa loo yaqaanaa grade macnaha kana kale soo ma jeed grade marka gradeka wuu sameeyaa laakiin secret gradeka maxaa waaye ereygan oo strict gradeka noo soo qaado strict gradeka marka waxaa kana soo yeesi soo ma jeed strict grade yacni waa kan oo kale waaye soo ma jeed imageski 3 oo kale ka dhig laakiin mid walba sizekiisa kusoo baxo cabirada ha kala duwanaadaan widthska iyo heightka ha kala duwanaadaan so qaabkaasna wuu kuu suurta gelinayaa recycle view so aad uu muhiim u yahay intaas marka recycle view okay marka isticmaalkiisa aan u macno haddii aad isticmaalayso farshamadii hore oo kale waxaa ku qasban tahay dependency-ga inaad kusoo darto recycle view hadii inaad timaado tiraahdeed recycle view dependence recycle view dependence kadibna aad kusoo darsato laakiin haddaa isticmaalaysid android maxaa studio versionska ugu dambeeya isticmaalaysid midkaan igu jiro oo kale kaagama baahna wax oo recycle view inaad kusoo darto waxaan kula talinayaa marka hadduu kuugu jirin recycle view kuu shaqaynaynin last versions inaad soo degsato android studio anaga marka waxaan kusoo darsanayna dependency ma jiro already wuuna ugu jiraa android studio so inaad kusoo darsato xml layoutka sida list view aan kusoo darsan jirna kusoo darsanaysaa markaa kusoo darsato waxaa abuuraysaa item layoutka caadiga ah marka list view la joogo waxaan la isticmaalaynaa anaga marka waxa la yidhahda card view waxaa implement gareynaya adapterka muhiim qasab waa marka la joogo sidoo kale waxyaabaha aan waajibka ahayn laakiin aan isticmaalayno waxaa kamid ah waxa la yidhahdo view holder not view holder waxaa la yidhahdaa modelka item modelka oo ah every item oo saaran screenka maxaa la yidhahdaa referencegooda meeshuu yaalo ama xogtooda meesha ay taalo waxaa la yidhahdaa modelka so modelka tableka kale uu u dhigmaa adoo xogta table kasoo akhrinayo kale ayuu u dhigmaa markii la joogo list view oo aan xogta soo akhrinayna waxaan dhihi jirnay get riskan oo isticmaalayno modelka galaaska get riskiisana oo isticmaalayno get title ama name get image so tableka adoo xog kasoo akhrinayo kale u dhigmaa sidoo kale okay waa maxay marka grid waxaa la yidhaahdaa gridku waa kan waaye library-gan waaye shaqadiisu tahay inuu soo load gareeyo images think volleyga iyo hoos maray miyaa hagaa diyaarinayo okay no problem gridku waa image loading waaye inuu imageka soo load gareeyo oo online image kasoo akhriyo volleyga marka la joogo wixii text iyo objects iyo waxaa soo qor laakiin marka rabto in image soo load gareyso grid u baahan tahay library for android optimizing for smooth and scrolling reduce memory use sidoo kale wuxuu sameeyaa si smooth in loo scroll gareeyo karo xogtaas soo akhriyo ayadoo la yareynayo memory usage memoryga la isticmaalayo asigana si loo isticmaalaa si waxu qasban tahay dependency-gana mar walba kusoo darsato dependency-ga kusoo darsan doonaa sidoo kale sidee koodkiisa loo qoraa waa kana waxaa leedahay create with contextga sheegay waxaa leedahay download image url-ka u sheegaysaa placeholder waxaa waaye imageka inta lasoo load gareynaya imageka lasoo bandhiga hadaa rabto sheeg hadaa rabto iska dhaaf error waa imageka haddii la waayo maxaa image noocee lagu soo bandhigaa imageka lagu soo bandhigana sheegtid inaad tiraahdo intuu meesha lagu soo bandhigaa imageka marka waa kaasa gradeka volleyga haddaan u maano volleygu waa android library kaasoo loogu talagalay in lagu handle gareeyo http requesting in online-ka wax laga doono waa efficiently waaye aad uu u fiican yahay simplifier networking task waaye si simple in loola macaamilo online-ka ama network-ga wax laga doonayo
sida tusaale kale fetching JSON data in xog JSON lasoo aqriyo from server database lasoo aqriyo. So iska simple waa Foleygiisu u shaqeeyaa wuxuu dirsadaa request queue si loo manage gareeyo multiple network request hal mar isla dirsanaysid multiple requestiga wuxuu leeyahay queue kuwaasoo ah sida requestiga u kala horeeyaan inuu loo kala sugo midka ugu horeeya marka hore lasoo bandhigo kadibna kuwa ku xiga lasoo bandhigo. Wuxuu cache gareeyaa oo controller responsiga support for better performance. Sidoo kale wuxuu support gareeyaa methodska kala duwan sida get post ayuu support gareeyaa. So that's it. Waxaan isticmaalaynaa wax la yiraahdo API ahaan oo haddana aan kasoo hadalnay wax la yiraahdo Demijenso nimanka la yiraahdo Fiegrest API sameeya walahan linkiga markana. So intaas wixii sharaxaad ah waa maxaa cashirkaani wuxuu horodhac u yahay projectiga ama final projectiga aan sameeynin ayuu horodhac u yahay. Waxaan codsanayaa qof walba ay focus xoog badan inuu geliyo ama waqti tiro badan inuu geliyo oo uu fahmo waxaan sida u shaqeynayaan uu 2 ilaa 3 jeer uu ku soo celceliyo ilaa uu conceptiga ka dhacdhacayo. Runtii ugu soo orod maaha anigana dee wax yar yar idima taataabanayo meena wax yar yar inaan tuso qorsheega waxa waaye in dee wax real aan taabsiyo wax real marka lagu taabsiinayo ugu soo orod maaha. Marka waxaa idin ka rabaa walaalayaal inay xoog saartaan oo maxaa la yiraahdaa waxa uu u baahan yahay in la geliyo juhdiga u baahan in la geliyo dadaal sameeya. Anigana waxa iga taqaanaan real project inaan sameeyo haduu Ilaahay yiraahdo. Idinkana waxa yiraahdaa application qurux badan design ahaan qurux badan performance ahaan qurux badan shaqadii qabanayaan qurux badan. Aniga just 25% 30% aan ku siin karaa. Adaa waxa laga rabaa inta soo harta 70ka 80ka wixii soo har adaa laga rabaa dadaal dheeri inaad gashid design qurux badan raadisid design samaysid maxaa la yiraahdaa xogta si loo soo load gareynayo waqti badan gelisid application qurux badan adaa laga rabaa ma brother. So hala dadaal insha Allah anigana dadaalkii u baahan tahay waa gelinaa laakiin idinka ayaa saa u shaqaysiinaya way kaan doontaa maxaa la yiraahdaa sida waxa soo bandhigi doonta insha Allah. So waxaan rabaa aniga markii aan Android dhameyno just qofku inuu application sameyn karo ugu yaraan application la akhrisan karto sidoo rabaa waa kaas. So intaas marka wixii oo theory iyo sharaxaad runtii aad muhiim u tahay sharaxaadaas qofku inuu fahmo waxyaabahaas si loo isticmaalayo. Just hadda waxaan laabaneynaa waxyaabaha laga rabo marka la joogo recycle view just in recycle view kusoo darsato XML-ka ina item-ki abuurato one item-ki ina adapter-ka abuurato iyo waxay u dartaa model-ki ina abuurato just kuwaan grid-ka iyo foley-gana dependency-gooda kusoo darsato kadib waxaan ku hormareynaa recycle view ina sameyno oo data oo static aan ku soo bandhigano kadibna aan gudubno in xog real aan doono before marka waxaan isla fiirinaynaa qaybtaan kana adeynaa kana harnaa inta I think inta wana joogaan kan oo kale laga xir kan okay waxaan rabnaa xogta inaan soo akhrino anagoo mobilka la gaarin waxa jiro API testing marka la joogo waa soo baray mid la yiraahdo waxa la yiraahdo Postman Postman-ku waa API testing API-ga inaad ku testi karayso inuu shaqeynayo iyo kale intii aadan la aadin projectiga loogu talagalay. So marka la joogo VS Code ka xataa ku isticmaali kartaa VS Code-ka VS Code-ka ku soo degsan kartaa
VS Code ka kala extension waaye Postman la yiraahdo darada kusoo shuban karta haddii kalena caadi usoo degso aniga caadi usoo degsanaa isticmaalana kana leedahay Postman downloadkiisa aad u fudud yahay marka download gareysanaysa inta ku dhufanaysaa processka maraysaa simple waa so aniga hadda waa igu jiraa waxaan baahnaa download gareeyo just Postman install download ka bacdi install gareyso videogan dheeraad ayaa marka laba video kalena ka dhigan noqone so marka inta timaadid waxaan kusoo baxayaan kusoo bixi doono don't save I think saan oo kale shaashada kusoo baxayso marka waxaa leedahay new workspaces ku dhufane kana lagu siin doona marka lagu siiyo nimankaan imaane qaybta karibta aad taqaanid userska ma rabtaa inaad soo akhriso qaybtan userska ma rabtaa inaad soo akhrisid qaybtan productska ma rabtaa inaad soo akhrisid postiska ma rabtaa inaad soo akhrisid adaa taqaanid mugta waxaa soo akhrinaysid anaa xog oo image wada rabnaa kan kale hadii image wada laakiin image-yadiisoo kale image-yada ma ka helin mafahanti image noocaan oo kale ahaan maxaa waaye waa kan productska waxaa la socda image oo caadi ah mafahanti kaasoo iska isticmaalayna marka linkigaan soo qaadanay linkigaas soo koobiyeyso walaalkay inta la imaaw paste ku leh markaa xog soo akhrinaysid meesha isticmaalisid waaye Postman I think ayaga xataa inay sheegayaan amaleynaa documents oo kala deedato think method kid waaye so wax kale ma u baahnid sindi aan leenahay marka requestigaas aan dalbanayna okay show marka see maxaa ujeeda waxaa noo soo bandhigay object maxaa ku taqaanaa marka bilaada calaamada curly bracketka gudihiisa maxaa ku jiro object la yiraahdo product keygi waa kana marka waxaa object si waxaa waa soo baraya qaraabo anaa soo baray ayuu manina JavaScript markii la joogo object sign soo baray JSON ko kale sida uu shaqeeyo sida loo soo akhriyo markii la joogo PHP oo jQuery ga soo akhrinaya tusay darf video dib ugu laaban kartaa marka keygi waaye value gina waa kan arraydan waaye marka productska array waa array sababta array u tahay maxaa waaye objectiyo badan ku jira macnaha halka objecti halka object intaas waa mafahant halka object intaas waa meesha haddana object kala ka bilaabana haddana object meelahan ku dhamaana mid kala bilaabana saas u soconaa marka objectyada hadii badan yihiin array la dhexgeliya lagu qismeeya arrayda marka inta ku dhamaata arrayda halkaas ku dhamaata kabacdi totalka meeqa 190 product waa 4 skip limit see so object ka bilaabanay kabacdi objectiga mid kamid ah product la yiraahdo array ku dhex jirta arrayda objects ku dhex jira
waxaa u baahan tahay marka objectigan kow inaad soo geshid kadibna areadaas aad furfurto kadibna objectiskaas gudaha kusoo baxa objectiskaas kuwa kamid ah id titleka iyo waxaas inaad soo aqrisid soo shaqo dheer waaye okay marka kan inaa ila fahantiin waa saasaa linkii loo soo qaadanaa xogta saasay usoo bixi xogtaas rabta inaad ku wareegto soo aqriso then soo bandhigato marka taas waa meel waxaan gudbaynaa marka cycle viewgii qaabka loo design gareeyay card viewga iyo wixii inaan u guda galno so let's do it qaraabahay shaqa tag noqdo kan meel ku fiican yahay inta iska dhig okay waxaan leedahay Android Studio okay noo soo kacay Android Studio weyn new project inoo abuur file new project empty view activity noo door nagastide application keena magaciis recycle view magacaas noogu bixi luqadda inay java ku doorantahay iska hubi inta kale isku taaban recommended kan hanoo ahaado kana minimum SDK-gana midkaas inoo dooro ha ahaado 97.4 boqolkiiba deviceska ama mobilada jira ku shaqeyn kara naga badan finish de so yep projectgeena waa kana laga shaqeynayaa isku soo laabana markii la complete gareeyo qaraab soo dhawaada application keena waa noo complete gareeyay fit waaye okay ka bilaabeynaa layout-kana geey main activity-gana geey haye shaashada naga xir spread noo dheh codeka kan naga xir text view-ga naga saar okay maxaa noogu soo diray recycler view ismaga qosa ku soo baxay Android X recycle view widget recycle view waxaa leedahay match parent shaashadaada la facaa baa leedahay ku dhufo marka intiimaha attribute-ka constraint-ka ku xir hadaa rabtidna hadaa constraint-ka afarta geesood ku xiraysa waxaa samayn kartaa inta waxaa leedahay invert constraint waa ku taagan yahay macnaha soo ma jeedid okay codekina waa celi id aa noola sameeyey laho recycle view 0db marka afarta dhinac si iskula mida u haysto widthkii heightka waxaa lagaaga dhigaa 0db means wax width ma la sheega height ma la sheega shaashad walbo la ekaanaa macnaha shaashad walbo la keeno afarteeda dhinac u qabsanaa oo la ekaanaa so responsive-ka waaye recycle view-ga aad u responsive-ka muhiim u yahay so that's it intaas waa sameynay waxaa noogu xigo item design layout-ka imaw right click de new layout resource de waxaan leenahay item design maadaama products ka soo hornayno product item boom ku dhufo qaybtaan naga xir minimize naga dheh kan gudaha soo geli inta waxaa rabaa inaan isticmaalo wax la yirahdo card view item marka la joogo kan hadda intaan soo sameeyey qaybtaan soo sameeyey koodkan
kan hadda marka itemka ku xiga itemka marka card view isticmaala marka awal card ma isticmaali jirin marka rabo xog oo maxaan kala rabo design oo card marka rabo drawable kan kusoo sameysan jiray mo markaan card caadi iska isticmaalo card marka kana waxaa leeyahay card view ku bedel card view bedel aa leeyahay kaas card view marka shaashada dhan oo hadda haystaa soo jeedi match balance hadii waxaa dhahdaa 160 db ka qaadana shaashada wediska marka joogo intane 200 oo db ka qaada marka intaas oo leeyahay isaga dhan marka wax ku dar 170 kale 180 nice 180 internet 250 kali I think that's why marka kaarka marka la joogo waxyaabo badan oo leeyahay horta margin ku dar 20 db oo farta dhinac halkaas iska imaado nice waxaa sameydaa wuxuu leeyahay marka waxa la yidhahda card aa qoree waxaa kusoo baxa card corner radius hadda markaa fiirisid kaarka cornerkiisa kaarka shapekiisa macnaha waxuu radius malahan mideedu marka xaalad saa kale 10 db ujeedaa ma geesoo kasoo xogmay radiuska sidoo kale elevationka ama hooska ama shadowga card elevation 10 db hooskaas mideedu hadaa hooska hadaa badiyo kale 50 mideedu uu badanaa elevationka ama hooska kaas kor okay hoos badan uu sameynaa halka marka 20 db oo kale la iska dhiga badin saas beautiful kaarka okay kaarkan marka anaga item saari karno wax ma dul saari karno kaligiis because hadda saar kala text saarta fiiriya text view saarena waxaan leenahay contact ana text waxaan leeyahay test card layout majiji wax mabdil meeshaas iska saarnaa image hadda keenta meesha saarnaa marka card view marka linear layout ma relative layout ma maxaa la dhahaa table layout ma constraint layout ma waa manage gareyn karta marka farsamada la isticmaalo maxaa waaye farsamada isticmaalayna waxaa waaye walaalkeen asaa waxaan kor saaranaynaa recycle review gaas marka maamuli karnaa waxaa leenahay match parent recycle review marka recycle review ma ahe ilaahay maalig constraint layout waxaan leenahay match parent hadda marka constraint saaran constraint kaas waxayna kor saarnaanayna marka constraint saas u xir saan hadiya qaraabo isla fahanay meesha hadda kan oo kale hadaa dhexdid calaamadaas isticmaashid oo maxaa la yiraahdaa saas u xir ma hadhowt marka wixii inta adigsid constraint ku dhex jirto marka saas la u xir ka bacdina closing tag ha samaysto gudahana marka waxa harta dhiganaya you see constraint kaas hadaysan okay kaarkan see u design gareynaa xarna kaarka intaan korna image saarno hoos productiga magaciisa hoostaan kalena productiga pricekiisa iyo hadaa rabna hadaa rate productiga ratekiisa
waa kusoo bandhigi karnaa. Laakiin hadda reedka ma isku sii mashquulinayno. Waa tusaa laakiin mar kale iska simple waa reedka. Laakiin intaas rabnaa kusoo bandhigi si xog simple saan ugu wareegin. Okay, waxaan ka bilaabeynaa image view. Waxaan leenahay horta waxaan wediskiisa waxaan leenahay match parent kaarkaas leekaysi. Height-kan waxaa leeyahay 200. 200 hadaa dhahdo kaarkana 250 ahay wax badan oo ka qabsan. Marka waxaa leedahay 160 dB qaadaa leedahay. intaas u qaadanaa macnaha. I think inay weli badan tahay 150 oo kale. 150 nice. Image intaas marka 150 ka qaatay. Infer constraint ka dheh. Constraint kiisa ku xir. marka meesha match parent ahead 0 dB oo isticmaalaa macnaha. Match constraint Allah magacaas leeyahay match constraint. Inka deemanaa laga fiiriyo in laga arkaa macnaha. Match constraint layout constraint iska furo. Okay. Match constraint Allah. Okay. layout wediska waa kana. Layout wediska maxay tahay 0 dB match constraint loo yaqaana. Si daaran imtixaanka ugu soo xada iska ilaali. Match constraint Allah. ID-ga marka waxaan leenahay product underscore image. Waxaa bana marka source-ga src image ma soo qaad marka gallery-ga ngee image kana kala iska soo kordhiyay qiimaha image taliga drupal hada dhahdo waa saxan tahay dii kale soo adkay numbers iyo waxaasina ku jiraan iyo calaamadaha ka ilaali qoraal la noqdo. Okay, waxaan leenahay marka add oo laga wada resource-ga tag kabacdi Drupal kabacdi plant. waa kaas marka image marka size-kiisa caadiga uu kusoo baxa size-kiisaas waa aniga waxaa leeyahay marka scale waxaa leeyahay fit xy x axis-kaaga iyo y axis-kaaga labadooda la account isku fidi. haye image waa ka dhamaanay marka waxaa noogu dartaa text view waxaa leedahay wrap contact waxaa leedahay textiga waxaa leedahay plant text size-ka 20 sp text color-ka block soo jiid markaas taa constraint kusoo darsaneen suurtagal ma infer constraint ka dheh marka bottom-ka ku xirmo bottom-ka ka fur bottom marna ku xirmo infer constraint kan sometimes programkaas uu leeyahay sameyneenaa kan ka fur kaasuu ku xiran yahaa macnaha afar dhinac buu ku xiran. waxaan sameyneynaa waxaan leenahay kor ama meel ugu xiran tahay maya hoos ka fur markaad waxaan leenahay kan inta ku xir kan inta ku xir haweer soo jiid kor ma ku xiranta kor ma ku xirnaa waxay iga soo gadaba jiidjiidima
dhufo ka fur meelaha ku xiran yahay dhan meelaha ku xiran yahay ka fur Vamos. يا إلهي خان هاجد وجيتي طبعا كردوفا اوكي طبعا تكست فيو ده ترتريمي فيو مرة بروبلم كحاواي وku xirmino kana bottomkiisa wuxuu ku xirmay kana kan ku xirmay marka waxaa sameynaya sometimes waa kugu dhici kartaa waxaa sameynaya infer constraint kan problemkaas waa keenaya ama waxaa sameysaa kana image ku dhufo image waa ku dhufatid attribute ka imo waxaa lada bottomka ka fur bottomka inuu ku xirmay meel inuu bottom ku xirmay marna kana waxaa sameynaysaa soo dhig imageka problemku sameeyo waxaa waaye 0db oo kaliya marka heightka waxaa leedahay 160 camal noo habeena 160 marka infer constraint sometimes problemkaas ku keenaa marka inaad adig ku xirto gacantaada ku xirto ku fiican marka hadda kanoo kale ku dhufo attribute kana ku xirana kan ku xiran kana darbigan ku xiran labadana ku xiran kor iyo hoos markina meel ku xiran naga rabaa kor kana ku xirana soo jiid marka waa kaasaa magaca saas uu noqonaa kan marka waxaa ka dhigtaa waxaa u bixisaa product name adana nice waxaa ku xijinaynaa price-ka alana text view grab contact textiga waxaa leenahay 19.99 alana texti size-ka kale 18db soo qabo inta keena sigana waxaan kala samayn karnaa intaa geeni karnaa intana waxaan dhigi karnaa text view uu dhahayo price contact texti waxaan leenahay price kadibna texti size-ka kale 20sb kan inuu kan ka yaraado waaye marka waxaan leenahay saro kale 18 oo kale 18sb akriyanaa waxaan kaloo leenahay text style normal ka dhig kanoo kale xoogaa text sidekiisa bold ka dhig waxaan leenahay text style bold ka dhig nice kan markaas waxaa dhahdaa inta kan ku xiran intan derbigan ku xiran intana bottomka kan ku xiran inta imaaw kana kusoo haraaday derbigan inta ku xiran intan xagga ku xiran tahay intana hoos ku xiran nice product magaciisa price-ka intaas marka waxaa fiican kalarka inaan ka duwano
markaan dhahno price colorkaas inuu color kala qaato markaan tegaynaa color picker color intaa kasoo dooranaynaa price oo kale I think colorkan blue inuu okay amana sameynaynaa marka colorska kusoo darsanaynaa toos intaan ugu darso laakiin inaa colorska kusoo darsataa fiican color primary ama price kale okay inta imaado marka kan ku dhufo text color price color okay nice so labadan way isla eg yihiin kan iyo kan inuu kan yaraado marka kan 16 oo kale kali si 16 sb meesha error laga saaro marka sheegaysid text aad sheegaysid waxaa fiican inaa sb isticmaasho so I think itemkaasaan design garaysane item markaa noo fadhiya price oo kale magaca u baxso waxaa leedahay product price si oo degan inaan u sharxayo malaynaa oo lila socdo okay designkaas iska simbalkaa iska samaystay design qurux badan oo samaysan kartaa adiga laakiin conceptiga iyo waxaa sida isku xirmayaana muhiim ku ah had meeqa processaa ka gudba marka 1 processkana ka gudbe 2 processkana ka gudbe 3 process ku xiga waxaa waaye implement adapterka recycle view adapterka marka intaa adapterka sameynin waxaan sameynaa modelka iska simple waa taqaaniin modelkaasiga qaybta designka waa kasoo gudbay jaafadana keen qaybta manifestada ma jaafa imaaw على right click new java class على product بيد capital نوادك product model okay انت مرة والبا انت وحسارة item كاغا انت شيء وصار item كي انت شيء وصار هذا محاواي item كي فيرسين انت شيء عارف item كسو بندك دوا انت وحاكسو مسلس item كادا كسو بندك image كا مقاعي برايس كان واسكا تغست عادي بلا soo daro you see so intaas la sameysana marka magaca string waaye marka magaca la joogo ala string b name another string b price image marka marka ugu horeysa harna xogta aan soo bandhigayno inay ahaato static xog static aan soo bandhigayno xogta sida caadiga list view xog static soo bandhigayno soo bandhig markaas waxaan sameeyaa waxa la get image resource wuxuu naga rabi doonaa image type keena inuu noqdo integer inuu noqdo marka int aan ka dhiganaa int image resource ala ma dhowto marka voreega waa bedeli doonaa macna image ka maxaa muuqaalka ugu dheeraaday inta ku soo kaabina amase waxaan ku dhameynaa modelkan ku dhameeyo intaas markaa sameysa modelkan waxaan rabaa constructorki waxaan rabaa waxaan leedahay haddii alta insert ku shaqeynaysa alta insert ladii kala right click leh generate constructor ku dhufo control a leh saddexdaas buu sameeyay constructorka waxaa waaye galaaska magaciisa wataa markii galaaska la waco ayaa waxaa isticmaali doontaa propertieska uu galaaska leeyahay ayaa awood u leedahay isticmaasho constructorka marka laga soo gudbo getriska u baahana hadhow qiimiyaalka ugu soo qaqaadanaynta marka getriskaasina waxaa dhahdaa java iyadoo iska powerful right click leh generate getriska leh intaana getris lagaaga sameynaa okay get product name get price get image resource so modelka intaas waasi videoga hal saac waaye sharaxaad dheer ku jirta videoga dambana
asigana shaqo dheer noo taalo keenay tolo ekaal insha Allah inta kusoo gabagabeynaa muuqaalkan 1 hour